ibrahim madaxtooyada Soomaaliya waxay war ka soo saartay iyaduna kulanka la filayo madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ee Muqdisho marka maxaa ka cusub war qoraal ah oo goordhaweed baraha bulshada ee madaxtooyada lagu baahiyay ayaa lagu yiri madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka waxay mar kale u yeeraysaa madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland in ay ku soo biiraan shirka wada tashiga ah ee lagu dhameystirayo tala soo jeedintii ay isla meel dhigeen guddigii farsamada ee ku kulmay Baydhabo 15 iyo 16 bishan Febraayo dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo ka duulaysa baa la yiri baahida loo qabo in dalka doorasho loo jeeyo waxay xal u aragtaa in dhammaan dawlad goboleedyada ay ka qayb qaataan dhameystirka geedi socodka doorashooyinka dalka loogana gudbo marxaladda hadda lagu jiro wada hadal qancin iyo in loo tanaasulo degta guud dawladda federaalka Soomaaliya waxa ka go'an baa leeyahay in dalka loo jeeyo doorasho lagana miro dhaliyo heshiiskii 17 September 2020 ay madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ku gaareen magaalada Muqdisho iyo habraacyadii lagu dhameystiray fulinta heshiiskaasi Cabdiraxmaan oo warka qoraalka ee madaxtooyada ka soo baxay wuxuu ku soo aadaya iyadoo Puntland iyo Jubbaland madaxdooda ay ka baaqsadeen inay Muqdisho yimaadaan Muqdisho waxa hadda ku sugan madaxda maamul goboleedyada Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha dawladda federaalka iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kuwaas oo kulamo hordhac ahaatan iyo shalay lahaa dabcan labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland shuruudo cusub ay ku xireen ka qaybgalkooda shirka Muqdisho wariyahena magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan aad buu u mahadsan yahay